kulanti wanaagsan maalin wanaagsan saaxiibayda saddexdan daqiiqo waxay idin dhaxgeyn doonaa magaalada Istanbul iyo qaybo kamid ah dhalinyaradii waxbarashada loo diray oo halkaas waxyaabo aan caadi ahayn ku soo bandhigaya dabcan waxaa jiro arday badan oo Soomaaliyeed oo aad u wanaagsan wax ka baratay magaalada Istanbul iyo gobolada Turkiga kadibna dalkoodii dib ugu laabtay waliba dhaqaatiir oo ka shaqeeya isbitaalada laakiin kuwan waa kuwa ugu xun ee waqtigan sawirka qaldan ka bixinaya ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga ujeedada muuqaalkan aan soo qaatay wax kale ma ahan waxa ka dhex muuqanayso gabar yar oo dhalay mid kamid ah xildhibaanada Soomaaliya waad isweydiinaysaa xildhibaankan ma federaal ama waa kii maamul goboleedyada dabcan gudaha ayaan kaaga sheegi doonaa balse ka waran adigoo ah aaba siyaasadda ku jira markii lagu soo diro gabadhaada oo shaarica magaaladii aad waxbarashada ugu dirtay daraagis ku isticmaalayso go'aan nuuc qaadan lahayd qaybta hoose commentiga adiga xataa go'aanka qaadan lahayd nala wadaag laakiin aabahan go'aanka uu qaatay ayaan ku sheegi doonaa horta muuqaalkan ninkii ii soo diray soo duubay uu ku mahadsan yahay wuxuu ii soo diray muuqaal aad u wanaagsan la fahmi karo soo jeed iyo sii jeed dhalinyarada loo fahmi karo laakiin waxa ku dhex jirtay gabar yar oo dhalay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya aabaha gabadhiisa markii loo diray muuqaalka gabadhiisa oo daraagis isticmaalayso wuxuu qaatay go'aan waliba go'aanka la rabay inuu qaato midkeedii ugu saxsanaa inkastoo siyaasaddu ay ka mashquulisay la socodka awlaadiisa iyo sidii wax u bartaan iyo noloshooda caadiga haddana wuxuu qaatay go'aan xilligaas wax ka bedeli karo nolosha gabadhiisa inkastoo ay halaawday ama qayb kamid ah daraagiskaas ay baratay meel walba laga heli karo haddana wuxuu sameeyay tallaabo degdeg ah oo kaga hortagi karo halka ay joogto iyo xurriyadda ay haysato aabaa wuxuu sameeyay markii loo diray muuqaalka gabadhiisa 24 saac gudahooda ayuu ku jartay tigid wuxuuna aaday magaalada Istanbul kadibna gabadhiisa ayuu ka dhadhacsiiyay inuu Muqdisho arrimo family ah halkan rabay inaan ka sheegin ayuu ugu diray ama uu u sheegay in halkaas ay soo joogi doonaan hal toddobaad kadibna ay ku laaban doonaan ama ay ku laaban doonto iyada goobteeda waxbarashada isagoo aan sheegin muuqaalka inuu gabadhiisa ka hayo isagoo aan waxba dareensiinin isagoo faraxsan ayuu yimid dib ayuuna u ceshay gabadhiisa bal ka waran adoo aabe ah siyaasad Soomaaliya ku jiro waliba magaca marka lagu sheego gabadhaada muuqaalkeeda oo daraagis shaarica ku isticmaalaysa lagu soo diro sideen noqon lahayd nala wadaag waa qayb kamid ah marka nasiib xumada ugu daran ee hadda wajahayaan qayb kamid ah ardayda Soomaalida ama Soomaalida guud ahaanba ee ku nool wadanka Turkiga Ankara 2 toddobaad ka hor waxaa lagu qabtay wiil dhalinyaro oo daraagis cabsan booliiska garaacay kadibna la xiray si lamida rag siyaasiyiin waaweyn oo jooga wadanka Turkiga ayaa hadda lagu eedeeyaa ka ganacsiga daraagiska waxyaabaha maanka duuriye maadaama iyagu aan laga shakinaynin waliba qayb kamid ah rag halkaas dawladda ay shaqo ugu dirtay ayaaba hadda lagu eedeynayaa inay iyagu dhaxdooda bilaabeen inay ka shaqeystaan waxyaabaha maanka duuriye maadaama laga shakinaynin gaarigooda iyo ay dhikaarada dawladda ay wataan waa qayb kamid ah marka ganacsiga qarsoon ee hadda ka socda wadanka Turkiga fadlan haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray waxaan ka codsanaa inaad la wadaagtid saaxiibadaada kale si ay dhammaantoodba feejignaan u galaan mahadsanideen